maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay garmaqalka eedeysanayaal u dhashay wadamada Britain iyo Malaysia kuwaasi oo lagu eedeeyay inay gacan saar la leeyihiin kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalantay gudaha Soomaaliya. Eedeysanayaashaasi ayaa loo qabtay qareen ka difaaca qodobada ay xeer ilaalintu u cuskanayso iyo turjumaan ku fahansiinaya xeerarkaasi luuqadaha ay ku hadlayeen oo ahaa Ingiriis iyo Carabi. xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Abdullahi Buule Kemey ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashaasi ay ku xukunto qodobada u qalma waxa uuna intaasi raaciyay in ay maxaabiistani ajaanibta ah ay London iyo Kuala Lumpur uga soo socdaaleen sidii ay u daadin lahaayeen dhiigga ummadda Soomaaliyeed waa siduu hadalka u dhigay. dhammaan intaas markii la isku daro waxay muujinayaan khatarta labadaas nin ay leeyihiin sababtoo ah labadooda midna wuxuu ka yimid wadamada adduunka uga horumarsanaa UK buu ka yimid qoyskiisa iyo noloshiisa reerkooda oo dhan wuxuu ahaa Kristan isaga waa islaama yiri haddii meel islaamka uu ku fidinayo malaayiin muslimiin gaalo ahaa joogtay meesha 90% waa gaalo wuxuu Soomaaliya u soo aaday inuu dhiig Soomaaliyeed ku daadsho kan kale Malaysia ka yimid Malaysia waxaan ka warqabnaa percentage gaalaha jira inta boqolkii intaasa islaama boqolkii intaasa kristana haddii uu wax islaaminayo kuwa wadankiisa joogu ku jihad ku sameyn lahaa ku tashkiilin lahaa islaamka inay soo galaan laakiin Soomaaliya waxa uu soo aaday waa dulmi iyo dhibaato dalkan inuu burburiyo sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka Qur'aanka iyo axaadiisa iyo qodobada aan ku soo eedaynay in lagu xukumo si ay ugu tusaale qaataan kuwa ka dambeeya ajaanibta ee Soomaaliya u soo hanqal taagaya inay ka dagaalamaan dhiig Soomaaliyeed daadiyaan. ugu dambeyntiina gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyntii soo xidhay garmaqalkaasi dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysanayaal Darren Antonio Bernes iyo Ahmed Mustaqim bin Abdulhamid intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso maxkamaddu Yusuf Saxardiid Yusuf VOS TV Muqdisho.